agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland mudane Dr. Shucayb Cismaan Maxamuud oo hiriyo agaasimaha guud ee komishanka tamarta mudane Maxamed Maxamuud Cabdi Milow ayaa furay kulanka labaad ee wada tashiga daneeyayaasha aaga tamarta Soomaaliland kaasi oo soo qaban qaabisay madasha kulanka aaga tamarta ee loo yaqaano Energy Sector Working Group kaasi oo ka qabsoomay hotelka Maasoor ee magaalada Hargeysa. Ujeedada kulankan ayaa daaranaa wada tashiga daneeyayaasha aaga tamarta Soomaaliland kaasi oo lagu soo bandhigay sidoo kalena lagaga doqday horumarka iyo caqabadaha aaga tamarta Soomaaliland iyadoo la dul istaagay qorshaha dhow kuwa dhexe iyo kuwa fog ee aaga tamarta Soomaaliland. Sidoo kale intii uu socday kulankaasi waxa diiradda lagu saaray halka uu marayo xeerka tamarta, siyaasadda tamarta, istiraatiijiyadda tamarta, xeer nidaamyaasha horumarinta aaga tamarta iyo halka uu marayo mashruuca dib u soo kabashada korontada Soomaaliland. Geesta kale waxa ay wasaaraddu soo bandhigtay habraaca qabiyo qoraalka nidaamka iyo dabgelinta dhismayaasha kaasi oo si fiican ay uga doodeen daneeyayaasha aaga tamarta Soomaaliland. Sidoo kale waxa komishanka tamarta Soomaaliland soo bandhigay tilmaamaha hawlqabad ee cilmi baarista iyo sidoo kale qiimo dhimista korontada Soomaaliland. Kulankaasi waxa hadal ka jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahaayeen agaasimaha guud ee komishanka tamarta, agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta iyo madaxda aaga tamarta Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa sektorka horumar ballaaran baa ka socda, mashaariic waaweyn baa ka socota oo magaalooyinka waaweyn qaar kamid ah laga fulinayo oo qiimihii iyo tayadii leeydhkaba insha Allah wax badan ka tari doona. waxaan rajeynayaa magaalooyinka kale hadhayna in uu gaari doono horumarkaasi qarankuna uu guuleysan doono insha Allah dhammaanteen. waa idin salaamayaa, waxaan idinka mahad celinayaa kulanka inaad soo ajiibteen. waxaan rajeynayaa kulan midho dhalay inuu inoo noqdo haddii la yiraahdo. waxaan idinku soo dhaweynaynaa kulanka aaga tamarta ee 3 biloodlaha ah. ujeedada kulankeenu wuxuu daaran yahay doodo iyo xog weydaarsi muhiim u ah qaabayn doonana mustaqbalka waaxda tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan isla eegi doonaa qorshayaasheena tamarta waqtiga gaaban, ka dhexe iyo ka fog iyo qodobadii muhiimka ah ee ka soo baxay sanadkii la soo dhaafay 2024 iyo horaantii sanadka 2025. waxaan sidoo kale kulankeena diiradda saaraynaa xagga uu marayo xeerkii tamarta, siyaasaddii tamarta iyo qorshihii 10 sano ee aaga tamarta kuwaasoo dhammaantood muhiim u ah helitaanka tamar jaban oo bad qabta isla markaana la isku halayn karo. sidoo kale waxaan isla eegaynaa iska dhageysan doonaa halka uu marayo xaaladda mashruuca aaga soo kabashada tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasoo aynu ka dhageysan doono warbixino iyo presentationo kuwaas oo ku saabsan qiimaha. waxaynu u fadhinaa waa madal dawladeed, waa madal dadweyne, waa madal ay kulminaysa private iyo publica. marka maaha madal mashruuc maaha, sidoo kale waxa weeye maaha madal aanu ku soo koobayno kaliya intan waayo private sector wax laga filayaa, jaamacadaha wax laga filayaa, commissionka iyo wasaaradda oo isku lamaanba shirkadaha korontada ayaa wax laga filayaa. waa madal in kulmisa madashu maaha madal u gaar cid gaara. waxaan rajeynayaa in wax nooga soo baxaan wax wanaagsan. waana mahadsantihiin. ujeedada kulankan waxa weeyaan maxay toolay in daneeyaasha kala duwan ee aaga tamarta korontada ka shaqeeya lala wadaago wixii update iyo progress ee sectorka ka socda, iyaguna markaa ay wixii feedback ay input laga helo. ujeedada ka dambaysa madashan iyada ah oo World Bank wasaaradda tamarta iyo macdanta ugu talagalay inay ku shaqeyso, waxa ujeedada ka dambaysa ay tahay in xogta aynu u baahannahay hadday aqoon tahay iyo hadday mid kale oo ku timi experience ama practical ku timi tay doonaysaba ha ahaatee inaynu ururino meel isugu keenno, ka faa'iidaysano, waddankeenna ku horumarino. siyaasadda wasaaraddu cid kastaaba ha maamulayso ilaa iyo waqtigaas way soo socotay, maalinba meel bay soo gaadhaysay. alxamdulillaah waxaan jecelahay in maanta iyo maalmaha dambeba haddii ilaahay kuu roon yahay aynu la nimaadno barnaamij dhammaystiran oo iminka sida waxa soo baxaya 10 sannadood ee soo socda haddii ilaahay yiraahdo waxa la yiraahdo strategic planka ama qorshe sannadeedka tamarta leydhka weliba oo hadda wasaaraddu gacanta ku hayso. World Bank-kuna inaga caawinayo. runtii kollaybana laga yaabo in shirkadaha naftigooda la soo maray cid kasta oo gacanta ku haysana wax laga soo weydiiyey in ay soo ururiyaan xogta
anigoo aan qorshahay markii hore maanta ahayn inaan ku dheeraado ujeeddadu ahayd inaan ina xasuusiyo waxa aynu isugu nimi waxay yihiin waxa aynu doonaynaa waxay yihiin iyo halkaynu u soconnaa waxay tahay waxaan jecelahay in qof waliba isku dayo inuu maskaxda tuujiyo 4 shir baa dhaca oo noocan oo kala haddii la yiraahdo waqti dhow aan waxba inaga xigin waxaan sameeyay isku xiga shir la yiraahdo joint sector review oo isna 2 jeeraale sanadkii dhaca ka waxa ka soo baxa halkan ayaynu 2 jeer ku lafaguraynaa dabeetana marka wixii barnaamij aynu doonayno inuu ku fulino hadii la yiraahdo aynu ku bandhigaynaa wasaaradda iyo cidii kale iska kaashanaysa marka ama wasaaradaha kale ku shaqada leh iyaga naftigooda halkan inay noqoto madal ay wixii doonayaan ay horumarinta sectorka ku saabsan aynu kaga wada shaqeyno aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa inaad soo ajiibteen gabagabadii kulankaasi waxaa la isla qaatay in daneeyaasha aaga tamarta Somaliland ay fuliyaan qorshaha dhow kuwa dhexe iyo kuwa fog ee aaga tamarta Somaliland iyaga oo wasaaradaha iyo komishanku ay ku kor joogtayn doonaan sida bulshada Somaliland u hesho koronto jaban bad qabta la isku halayn karo isla markaasina ka timaada ila nadiif ah